bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada janaalkeena kaaha wararka waxaan kusoo gudbinaynaa qodobadii ugu dambeeyay ee soomaaliya iyo caalamka saakina qodobada aad maqli doontaan ama aad ku daawan doontaanna waxaa qeyb ka noqon doona madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maqaal dheer ka qoray arrimaha siyaasadda dalka isagoona maqaalkiisa ku muujiyay iska difaacidda eedeemo badan oo dhanka caalamka iyo gudahaba ugu imaaday waxauu cibaan ugu dhigay aniga ha igu eedeynin dib u dhaca doorashada taabadelkeedan waxa uu weerar aan gabasho lahayn ku qaaday mucaaradkii madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland waa soo gudbi doonaa barnaamijkiina kaha wararka ayaadna ku daawan doontaan sidoo kale waxaa idiin soo gudbi doonaa daawadayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa la sheegay inuu diidmo cad kala hor yimid villa soomaaliya qorsho ay ku dooneysay in la taliyaha madaxweyne farmaajo cabdi cali raage ay shirka 20 bisha la filayo inuu muqdisho ka dhaco uu qeyb ka noqdo haddaba maxaa ku kalfeen wasaaraha uu diido maxayse villa soomaaliya arrintaas ay ka damacsaneed waa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan oo qeyb ka noqon doona barnaamijkeena kaaha wararka qaar ka mid ah golaha midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa selma filaan ah u taageeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya rajana ka muujiyey shirka la filayo in maalinta beerta uu ka qabsamo magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa iyo wararka ugu dambeeyay ee dhanka arrimaha caalamka ku saabsan fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gambalelkana furo una sheer garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo markaas laagay kuma tegina inoo reebaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan ku bilaabaynaa saaxiibayaal maqaal dheer oo uu qoray madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo u muuqday mid isdifaacid ah taabadelkeedana uu ku weerarayo dhinacyada kasoo horjeeda ee mucaaradka iyo maamulada puntland iyo jubbaland madaxweynaha ayaa maqaal uu ku qoray jaridda lagu magacaabo foreign police ee mareykanka waxa uu ku sheegay in aan lagu eedeyn karin dib u dhaca doorashada mucaaradka farmaajo iyo madaxda maamulada puntland iyo jubbaland ayuu ku eedeeyey in 4 sane ee uu xilkaya uusan waxba ka qaban sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah islamarkaana uu ku marmarsiyoonayo arrinkaas waxa uu ku dooday in tan iyo markii uu xukunka la wareegay febraayo 2017 ay ka go-need in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah si shacabka ay u helaan awood ay ku doortaan cidda ay doonayaan doorashada soomaaliya dib uguma dhicin in aan doonayo siihashada xukunka balse waxaa arrinkaasi sabab u ahaa dowladaha xubnaha ka ayuu farmaajo ku sheegay maqaalka madaxweynaha ayaa tilmaamay in khilaafkan uu salka ku hayo rabitaanka dowladiisa ee dalka inay ka dhacdo doorasho ay shacabka codkooda ay ka dhiibtaan iyo maamul goboleeda uu sheegay inay rabaan doorasho dadban oo awoodda siisa dad kooban madaxweynaha ayaa sheegay in isaga oo ka xun uu aqbalay heshiiskii doorashada ee September 17 2020 balse uu ka codsan waayey uu ka socon waayey madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa marar badan beeniyay eedeyntaas waxa ayna sheegeen in dhanka madaxweyne farmaajo uu ku fashilmay heshiiska uu ka soo carooday maqaalkan ayaana si weyn loo hadalhayaa isla markaana la leeyahay waa mid markaa oo isku difaacay madaxweynaha taabadarkeedana oo eedeyn culus kala dul dhacay dhinacyada asigii kasoo horjeeday ee mucaaradka iyo madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland markaana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la sheegay in uu diidmo cad oo kala hor yimid qorsho ay villa Soomaaliya ku dooneysay in la taliyaha dhanka arrimaha amniga ee madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ay markaas uu ku doonayeen in ay wasaaraha uu kala shaqeeyo war lagu kala soonaan karo oo aan helnay ayaa waxa ay sheegay in wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu diiday isku day la doonayay in la taliyaha madaxweyne farmaajo ee arrimaha doorashooyinka loo wareejiyo xafiiska ra-iisul wasaare Rooble cabdi cali raage oo ah la taliye farmaajo ee doorashooyinka ayaa la sheegay inuu doonayay in ra-iisul wasaare Rooble uu kala shaqeeyo shirka madaxda dowladda federaalka ee ku maamul goboleedyada ee 20 May ka furmaya Muqdisho wararka ayaa intaas ku sii daraya in ra-iisul wasaaraha uu diiday qorshaha xafiiska lagu wareejinayo cabdi cali si uu ula shaqeeyo shirka Rooble ayaa hogaamin doona shirka ka furmi doona teenada Arizona ee looga hadlayo hirgelinta doorashooyinka waxaana la filayaa in madaxda dowlad goboleedyada ay soo gaaraan Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka madaxweynaha mudxuleedkiisu dhammaaday ayaa maamulka doorashooyinka iyo amnigaba ku wareejiyay Rooble kadib markii golaha shacabka ay dib uga laabteen muddo kordhintii ay u sameeyeen farmaajo oo si weyn looga soo horjeestay isla markaana ciidamada dowladda federaalka ee arrintaas ay ku kala qaybsameen
weli waxaad daawanaysaan saaxiibayaal janalkeena kaaha wararka oo aan kusoo gudbinayno wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo una sheer garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo kumatiga iyo laagina inoo reebaya. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. qeybii dhaxana waan isla soo gaarnay. markaana qaar ka mid ah midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u taageeray qorshaha shirka maalinta biritaha ah ee la filayo inuu ka furmo muqdisho oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. haddaba waa kuwa ugu waaweyn ee mucaaradka ee taageeray Roble, inkastoo goor dhaweyd ama maalin hore sida aan ku baahinay janalkeena Kaaha wararka midowda musharaxiinta ay ku kala qaybsameen dhaleeceen loo jeeday wasaaraha. haddaba aan ku hormarno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha golaha midowda musharaxiinta ayaa soo saaray qoraal uu rajo ugu muujiyay in shirweynaha loo madeysan yahay 20 bishan oo biri ah ee ka dhici doono Muqdisho oo mar dhali doono waa haddii uu noqdo mid loo dhan yahay sida uu hadal ku dhigay qoraalkiisa. shariifka oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook ayaa yiri waxaan rajeynayaa kulanka 20 bisha loo madeysan yahay kaas oo looga hadlayo dhamaystirka heshiiskii doorasho ee September 17 inuu noqdo mid mir dhal ah oo guuleysta si dalka uu galo marxalad doorasho oo nabdoon raalin laga wada yahay taas oo u furan qof kasta taas oo u furo u noqon doonta in lagu qanco natiijada doorashada. sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowda musharaxiinta mucaaradka wuxuu sheegay in kalsooni heerkeedu sareyso uu ku qabo in dadaalada socda ay yihiin kuwa xal loogu raadinayo khilaafka doorashooyinka dalka, isagoo soo jeediyay in fursad la siiyo ra'iisul wasaare Roble. waxaan sidoo kale kalsooni buuxda ku qabaa dadaalada socda ee xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee uu hormuudka ka yahay Mr. Roble. anigoo aaminsan buu yiri ra'iisul wasaaraha in la siiyo fursad uu ku guto mas'uuliyadda weyn ee laga sugayo ee qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, ayuu shariifka qoraalkiisa Facebook ku soo daabacay uu arintaas kaga hadlay. dhinaca kalena waxaa sidaas la mid ah u soo dhaweeyay isla markaana rajo weyn ka muujiyay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug haatanna ka mid ah midowda musharaxiinta mucaaradka Cabdikariim Xuseen Guuleed. qoraalka Cabdikariim Xuseen Guuleed waxa uu ku bilaabay shirka loo madeysan yahay 20 bishan oo ah shir ay dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ee ka dhowr sugaya inuu soo afmeeri doono khilaaf siyaasadeedkii iyo kala aragdugnaanshihi harayay qaybsamada doorasho xor iyo xalaal ah. shirka ayaa waxa uu rajeynayaa inuu guuleysto ayna ka soo baxaan go'aamo horseedi kara in dalka ay ka dhacdo doorashadii muddo dheer la sugayay. waxaan rajeynayaa in dadaalada ra'iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisa ay ku aadan natiijada ama najixinta shirkaas iyo qabashada doorasho hufan ee Maryland anigoona dhinacyadeenna idinku buurinaya in la muujiyo tanaasul iyo in markaas wasaaraha kalsooni buuxda la siiyo si markaas waajibaadka horyaalla uu guto isla markaana uu alla u fududeeyo in shirkaas oo guulo waaweyn uu ka soo hoyo. kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah midowda musharaxiinta mucaaradka kuwa ugu tunka weyn oo markaasi ka mid yahay gudoomiyaha midowda musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Galmudug oo haatan markaasi ka mid ah midowda musharaxiinta mucaaradka Cabdikariim Xuseen Guuleed. wararka Soomaalida ayaa daawateen saaxiibayaal kuwooda ugu waaweyn ee saaka taagan iyo hadalheennada kala gedisan. waxaase markaan idinku soo dhaweynayaa wararka kale ee Soomaaliya ka baxsan kuwooda ugu waaweyn ee dhanka caalamka iyo diblomaasiyadda waxyaabaha markaasi laga qorayo. waxaa ugu waaweyn Mareykanka ayaa la sheegayaa dhaleeceeyay hadal ka soo baxay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ka hadashay hadal dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Turkiga Erdogan oo ku saabsanaa colaadda Israa'iil iyo Gaza. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Erdogan uu adeegsaday erayo ka dhan ah dadka Yuhuudda isla markaana ay si xoogan u cambaareynayaan hadalkaasi foosha xun. madaxweyne Erdogan wuxuu Israa'iil ku tilmaamay dal dilaa ah xilli uu Isniintii ka hadlayay dagaalka Israa'iil iyo Falastiin. wuxuu sheegay in go'aanka uu Mareykanka ku shaaciyay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil ay sare u qaadi karto damaca Israa'iil ee dhiig badan ee ku daadi karto. waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Erdogan iyo hogaamiyaasha Turkiga inay ka fogaadaan hadallada horseedi kara qalaasaha ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. waxaana sidoo kale lagu baaqay Turkiga inuu ku soo biro dadaalada Mareykanka ee ku aadan joojinta colaadda Israa'iil iyo sidoo kale Falastiiniyiinta. sidoo kale Erdogan oo Isniintii ka hadlayay shir jaraa'id wuxuu sheegay arrinta ku saabsan in Mareykanka ay
dalalka ay ku dhawaaqeen qudus ay tahay caasimadda Israa'iil dabiiqadii 2017 waxay sar u qaadi kartaa damaca dalalka dilaaga ah ee ku saabsan dhigdaynta dadka reer Falastiin. guud ahaan daawadayaal wanaaginta wararkii ugu dambeeyay aad kala socoteen janaalkeena ka ah wararka oo markaasi aan kusoo gudbinay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. fadlan haddii aad nagu soo taasoo subscribe taargan barnaamijkan furqano shir garay saxaabada meel kasta joogaan adigoo like iyo comment igna inoo reebaya aad iyo aad u mahadsantihiin.